bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed ciddii daahir calasow uu dhibaayey oo dhibaatada ku hayay in daahir gebigiisiiba lasoo afjari doono 17 bishaan aynu ku jirno 17keeda lixaad in lasoo afjari doono oo uusan cid dambe dhibi doonin. nacaska waxa laga dhex saari waayey ma jeerteen. nacaska ku wareeray daarood kala gura kala faquuqa ama gaar u beegsada. waxaanu ka wada hadalnay ama loo xil saaray cid isaga la joogta oo ay meel ku wada nool yihiin. marka 17 bisha ayaa wax maqlaysaa nin barnaamijkaasna waa barnaamij la diyaariyey marka cid dambe uu dhibaayo ma jidho ama miidiya dambe uu soo fadhiisanayo. intaasaan la wadaagayaa dadka. doqon lagaa celi waayey oo dadkiisii qasho waayeen ama ka boohinaya gabdhaha soomaaliyeed ama rikaata ku qabanaya gabdhaha iyo dhalinyaradu daarood. yuhuudi cidi qabso weeyey oo khibrada la sii daayey. marka odagii marka waa soo afjaraynaa insha allah biidnillaahi kariim. waxaanuna ku bixiyey lacag baan ku bixiyey u adeegsaday. lacagtaas haddana waxa dheer rikaata aan ka hayo dad la nool isaga oo aan rikaata ku hayo ayaan u diray oo hawshaa fulinaya. uma adkaysa karno gabanoo booyeysa ama wiil rikaata lagu qabtay. gabdhaha suuliyadooda intii lagu xirto kaamirad xuna intii lagu xirtay sidii la doono loo soconayo dadka musqulihiisa ma yeelayno. waa ka soo horjeednaa arrintaasna aniga ayaa dhammeeyey. sidaasaan inii sheegayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. yaa daaroodiya yaa wiilaan dheeraha maxamuud saleebaan aan ahay anigu. isagana waa la yaqaanaa cidduu yahay. aad baan iniin salaamayaa meel kastoo aad joogtaan.